waxaanu yar baahanay inaynu daadegno haddaba aragtidii la kala qaatay ee halkan aynu ku kala qaadanay ee aynu mas-uuliyiinta halkan fadhiya aynu ku kala fahnay waxay kala aaminsan yihiin ayaynu baahanay inaynu daadegno idinkana waan idiin soo noqonayaa dad badan baa laga yaabaa inay laabta cuncunayso oo su-aalo badan ay qabaan oo ay aragtay aad iyo aad mawduuca u soo akhriyeenoo madaxda halkan joogta jecel yihiin inay fikirkooda la wadaagaan laakiin waan idiin soo noqonayaa insha allah waxaan u noqonayaa inaan bal aragtida iska soo horjeeda ee halkan taala aynu mas-uuliyiinta halkan fadhina dib iskugu celina iyaga in yaroo kooban waqti yaroo kooban baad siinaysaan marka microfono dheeraadaan u baahanahay wada hor yaalaan qofkii su-aal weydiiyaa wuu furan doonaa insha allah injineer maxamed xaashi oo goobta ugu hor hadlay wuxuu qabaa in doodii soomaaliya iyo midowgii lagu fashilmay dhibaato badanna ka timid haddii ay ka timid oo ay soo socotay in wax lagu heshiiyey oo meeshaa ka soo baxayna aanu jirin kadibna sidaa lagu burburay maxamuud xaashi cabdi wuxuu qabaa wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya ee la galay dhammaantood inay noqdeen qaar lagu fashilmay haddaba haddii uu maxamed xaashi qabo 90kii wixii ka horreeyey dhibaatadii ka timid in lagu fashilmay oo la isku fahmi waayo soomaaliya sad bursatay maxamuud xaashina kadib qabo wixii lagu wada hadlay in lagu fashilmay maxay tahay dooda odhanaysa wada hadalku ha sii socdo professor samater baan ku noqonayaa markaa kelmadda haddaad baayac mushtari tahay oo dukaan leedahay ood maalin amba laba amba saddex khasaarto anu waxaan qabaa inay fulanimo tahay dee inaad albaabka isku xidhoo tahay waa khalaas waan kacay noloshu faa'iide iyo khamaar labadaba way leedahay dee inaanad adigoon diyaar ahayn aad khasaarana u badheedh adoon diyaar ahayn waa laga wanaagsan yahay maxamedow laakiin anigu waxaan qabaa ma aha khasaaruhu ku ka yimid soomaaliya oo ka baxday amba aanay ka dhab ahayn wadahadalladii ilaa imika soo gaadhay intaasi waa ka qayb anu waxaan qabaa caawana uguma horraysa meelo badan baan kaga hadlay oon ka qoray Somaliland never really put together a project that can convince the world in waxaynu wadnaa ay tahay wax adduunyadu ay u baahan tahay inay garato projectkaa maynaan dhisin yaan anigu qaba maynaan dhisin halkan jib baa ka hadli halkaa mashxarad baa ka yeedhi halkan dad kalaa ka qaylin laakiin waxaa inta la ururiyo waniga kuridda kuu fiicanaan secretary general of the United Nations baa i weydiiyey anna in badan baan isku haylay the last 6 years inaan bal eegadee halkay tahay dowladihii waddanka xukumayana waan u sheego waxaan ku yidhi ma hayno waxaanu iibino ma hayno aan ahayn oohin halkan ka dhacaysa oo dhab ah it's true halkan ka dhacaysa amba sheeka halkan ka socota iyo xusuus halkaa ka socota those are important ingredients of the story anuu abyan baan ku raacsanahay very serious aan ku raacsanahay not because we have come from the darifyada no but I think facts ayaa farta ku fiiqaya daldaloolka isaguna uu sheegay aniguna aan sheegay qodobada aan anigu soo waxaan hal cilmiyeeyo taariikhdii ingiriiska ka horeysay waxaynu ahayn aynu kaga duwanayn adeega ilaan doodeenu goorbalba waxa weeye waynu ka duwanahay Soomaali waa walaa ilaahay wax badan baan wadaagnaa laakiin we are different people with a different ideas about how to govern ourselves halka in laga soo wasladeeyo oo deetana la ururiyo la isku keeno dooda la isku keeno marka dambana ay noqoto ferd gidaarka jabinaya ay noqoto aan waxaan leeyahay taa maynaan naqshadayn si dhaba uga maynaan shaqayn aniga committee baa la igu daray let me make it very personal
anuu maraykan jooga magacayga committee baa lagu daray soo aad garmaysa and I took that as an honor badge wax sharaf leh oo dee dadkaaga iyo madaxdaada inay gartaan waan aad baan u guddoonsanay laakiin meel ay u jeedo meel ay u socoto goorta la kulmayo waxaasoo dhammi may jiro markii dambe waxay igu kaliftay inaan warqad soo qoran ku idhaaho aniga ha layga saaro waayo tani ma iib gelaysay ha layga saaro marka waxaan u jeedaa waxa weeye waa laga yaabaa adiga oo aad iyo aad iyo aad waxaaga usoo soofaystay inaad cusufanto way suurtogeli kartaa way suurtogeli kartaa laakiin anigu waxaan leeyahay haddaynu ku kalsoonnahay qadiyadeenna oy tahay mid la shiilay oo tafaqiirtiran hadday tahay dee haddaynu mar cusubno waxaynu eegi doonaa haddaan dhan kale ka soo geli karno laakiin caqiidada iyo fikraddeedu iyo sida ay u dhisan tahay waa miiddii somaliland anuu miiddaa weli layskuma keenin meelna lama dhigin markaa khasaaruhu ma aha ya iyada oo soomaaliya amba ay ka baxday amba ay naga tagtay that's part of the story the real khasaaruhu waxa weeye war inaku hawsheenii kamaynaan soo bixin so we have to start all over again thank you very much aad buu mahadsan yahay professor Samatar haddii uu maxamed xaashi aaminsan yahay inaan la wada hadalba waa dooda halkan taalla doodunbaa innaga inoo ah gundhig maxamuud xaashina uu aaminsanaa qaabka loo soo wada hadlay South Sudan ee lagu kala baxay ee fahanka iyo aragtida muddada dheer soo socday oo ka mid ahaa dhibaatadii ka kala dhex dhacday waqooyiga iyo koonfurtu mid ka mida dagaaladii adduunyada ugu dabada dheera saa taariikhda ku haysaan Somalilandna ay ka mid ahayd oon goobjoog ka ahayn warbaahintana markii aftida laga qaadayay South Sudan iyo adduunyadu sidii ay iskugu timid 2011 sagaalkii bishii January sidee bay haddaba u noqon kartaa in maxamed xaashi oo ah aragtida qaba yaan la wada hadlin adduunyadiina ay qabto hal la wada hadlo lagu kala bixi karayo oo ay tahay inay beeshii caalamkuna tiri Somaliland iyo Soomaaliya noloshooda ay ka tashadeen injineer maxamed adan ku soo noqonaya iska fadhi bismillaahir rahmaanir rahiim waxaa maanta ka taagan Soomaaliya horta dawlad lala hadli karo oo dhisani sida runtaa ma jirto waxaynu ku khasaari doonaa sidii kuwii hore aynu ugu khasaaray dadan mas'uuliyad hayn oon la dooran oo aan xilba u hayn ayaynu ku khasaareen waxaa kale aynu ku khasaarnaa dadka qaba wixii halkan ka dhacay ee xasuuq ahaa ee la laayay dadkii diyaar lala dhacay dadkii geystay oo weli waxba ayna ka qaban oo ay leeyihiin waxa weeyaan waa heroes waa geesiyaal oo Cali Samatar wuxuu ahaa national barrier wuxuu la siiyey kii ninkii halkan fadhiyay muxuu ahaa صدق أوها سياد برة ciidamadii halkan ka amreeyay gudiyadii kullaynayay ee inta la soo ururiyay sida muxuu ahaa malkab durduro ciidamada u dirayay ay ku darajo doonanayeen nin waliba intuu soo dilay ayaa xamar jooga waliba doorasho doonaya kolka waxa weeye haddaynaan dhohnayn dadkani waxay kii ina laayay bay iyagu heroes u qabaan waxaan ka doonayaa aniguma garanayo caqlina keeni maayaan umanayna dhalan weligoodna laga heli maayo markaan waxayna qabsanno oo shaqaysanno oo berigay wax noqdaan aynu laba dowladood jaara aan noqon injineer maxamed adoo mahadsan ma waxaad leedahay waqti lala hadlo oo dawlad Soomaaliya ay tahay baanay joogin sidaasan wada hadalka ku diidanahay
mise waxaad leedahay in la wada hadlaba ma ogoli oo dawlad dhisan marka la helaa lala hadlaya baan aaminsanay adoo koobaya horta kolka hore dawlad dhisan oo lala hadlaa oo xamar joogtaa oo wax xukuntaa ma jirtee waa ka dabaabadana lagu kaxeeyo kolkuu dhoofayo kolkuu soo noqdana maxaa lagu soo celiyo waay wax ii kaadi wax ka go'ayaana ma jiro ta dheeree kale waxa weeye dadkii waxaan geystay iyagu sida ay u qabaan iyo sida ay tahay ayaa aad u kala duwan geesiyaal bay u qabaan iyagu way magaaladii bay dhex socdaan qof qura looma xidhin wixii dhibaato halkaa muxuu ahaa ka dhacday wixii xoolo la gurtay qof qura looma xidhin kolkaa waxaad kula hadlaysaa muxuu noqon karaa aduma waxaad aaminsan tahay in dawlad jirto oo nidaamsan markay helaan lala hadlo mise inaan lala hadalba anu uma baahniba maxaa ay daba wadaan aniga waay injineer maxamed aad baad umahadsan tahay dooda odhanaysa in adduunyadii ay doonaysay in la wada hadlo oo dariiqii lagu wada hadli lahaana uu leeyahay in la ishor fadhiisto oo ay aragtidoodu u badan tahay mas-uuliyiinta halkan fadhiya maxay kaga duwan tahay taadu miyaanay u bislayn in adduunyadu wakhtigan wada xaajood la wada galo waxaan anigu u arkaa dad kale Soomaaliya ha la isu tago ha la wada hadlo in weliba hadda iyagiina waxaan ku idhi wixii waxaan geystay geesiyaal bay u yaqaaniin kolkaa dabeeta waxa weeyaan waqti baynu iska luminaynaa waxa weeyaan Soomaaliya maaha dad muxuu ahaa kii samatar baariyalka siiyanaas kii dambiilaa oo lagu xukumay inuu dambiila yahay markaasaan haddana ag fadhiistaa waad mahadsantahay aad baa mahadsantahay waktigaynu koobanaynaa maxamuud xaashi cabdi baan ku noqonaya wasiir adigoo mahadsan waxaad aaminsantahay in wadahadaladii lagu fashilmay wax midho dhalana maanta aan laga joogin professor samater wuxuu kaaga duwan yahay inaan loo bislayn dariiqii hore ee loo maray in la wada hadlo waxaad ka wada tirsantihiin xisbiga kulmiye oo aragtidiisuna ay tahay xisbiga bilaabay wadahadalka labada dhinac maxaa caqabadee ka dhex jira xisbigiina idinkoo ku kala aragti duwan fikradda wadahadalka inaad haddana dooda wadahadalka aad furtaan بسم الله الرحمن الرحيم وعن إسلام وأنا احترامي يا هالدور كان فدي أركتيو هذا أنا يا بروفيسور سمتر وحن قبا سلام هذا أقول نريد أركتيس كشخص يبوي لكن أنا قص حسب كلمية سياسة دي وهذا هذا كلا هنا وأنا قاعديني ilaa maanta madaxweynaha joogan arrimowqifkiisana waa aniga halkaa ka sheegay samatarna qadiyadda iskaga aragti baalma waa mucdam nuxurka dooda Soomaaliya in la wada hadlo oo weliba layna dhex galo oo ayna dhex galaan dunida arrimaha Soomaalida danaysa beedkeena saari mayno meel qura don't put your egg on one basket meel qura saari mayno dalal kala duwan baynu u dhiibaynaa midowga Yurub igad muxuu ahaa Ingiriiska Mareykan Norway oo khibrad u leh Turkiga oo ku soo jiray aragtida kale ee aragtida walaalkay professor Samater oo nin aqoon-yahana ee halka loo jeediyo halka laga wax badan baa anigu taalama qabo waan kaga duwanay ma aha difaacayo xisbiga kulmiye hogaanadiisii kala dambeeyay Siilaanyo Muuse Biixi labada madaxweyne iyo xukuumadahooda waxa la Somaliland waxa badan halkay ku socotana waa garanaysa halkaynu ka nimina waa garanayna wax badan oo inoo qorayna waa jira ilaa iyo madaxweyne Cigaal marka laga soo bilaabo ilaa madaxweyne Cabdiraxmaan Axmed Cali madaxweyne Cigaal madaxweyne Daahir Riyaale madaxweyne Siilaanyo madaxweyne Muuse mid waliba in buu soo qabanay qarankan demoqrashaliin mana istiraatiijiyad
professorka iyo aqoonnaha iyo hanada waaweyn isaga iyo cali khaliifi waxay nagu soo kordhinay dheeraada aqoontooda marti baanuna u baahannahay mudane wasiir waxaan saxayaa maxamedow erayga ah wada hadalladii Soomaaliya iyo Somaliland exactly ma cabirin waa lagu fashilmay waayo faa'iidooyin baaban sheegay dee laga helay laakiin waxa weeye waxaan idhi madalays bay noqdeen midhihaynu doonaynana kamaynaan goosan erayadaasi xoogaa bay kala duwan yihiin waad mahadsantahay wasiir intaanan ka bixin hadalkaaga waxaad ahayd wasiirkii duulista iyo hawada duulista iyo hawada marka laga hadlayo arrinta hawadu waxay noqotay qodobada ugu muhiimsan ee laga wada hadlay Soomaaliya doorar badan baad qaadatay wada hadal badan baad gashay oo wasaaradaada iyo adiga oo shaqadaasi haddana ay noqotay iyada lafteedu saad hadalka u dhigaysa mid ma dhalaysa maxaa keenay bay kula tahay marka qodobadii ka soo baxay shirka oo sagaala lagu xusay in hawada laga wada hadlo adiguna aad wasiirkii ahayd inaad ku kormeertana aad shaqada mas'uuliyaddeeda lahayd inay haddana hawadii lala wada wareego maxaa keenay ma fahan darro Somaliland dhinaceeda ka timid ayaa keentay oo adigu aad kow ka tahay aad baad u mahadsantahay maxamed waxaan ku horeynayaa sababaha iyo evidence-ka aan ku dambeeyay exactly jawaabteeda waxa keenay daacadnimo la'aanta dalka aynu deriska nahay dawladdiisa Soomaaliya eedaasi ma qaybsana wax cad baynu ku heshiinay waxina way ka baxeen inagu kamaynaan bixin hawadan maamulkeeda inana maynaan hayn iyana ma hayn waxa hayay qaramada midoobay resolution baa lagu baasgareeyay 1993 xilligii Butros Dr. Butros Ghali in hawadii qarankii Soomaaliya la oran jiray maadaama uu burburay qalalaasina ka jiro in qaramada midoobay maamulaan Nairobi baa loo raray FIR-ka magaciisii lama bedelin sida telecommunication code-kiisa oo kale laakiin ilaa maantana waxa maamula hawadii qaramada midoobay maxay isbedelay iyaga heshiiskii ka baxay waxay ahayd nuxurku war aan kala soo wareegna hawada maamulkeeda aan kala wareegno qaramada midoobay oo dhaqaale badan ku qaada waxna aan inaga soo gaadhin aynu wada maamulano maadaama khilaaf inoo dhaxeeyo oo qadiyadaasi qadiyad aan siyaasadda ka madax bannaan iyo khilaafaadkeena intaynu kala baxano aan ka dhigno oo dhex maamulo oo xarunteedu Hargeysa ha noqoto FIR-ka iyo air traffic controller-ka iyo guddida boardka Hargeysa joogeen iyaga ka baxay maxay isbedelay waxay muddo daba socdeen inay wareegaan iyagoo ina khiyaameynayeen qaramada midoobay waxay ku qasbeen maadaama yihiin dal qaramada midoobay aqoonsan yihiin in hawadii loo dhiibo xamar Nairobi baa laga soo raray imika Muqdisho lagu hayaa Muqdisho la keenay qaramada midoobayna way khaldameen Soomaaliyana way ina khiyaanayso daacad la'aan bay la timi laakiin maanta shacbiga waxaan u sheegay ilaa maanta gacanta kuma hayaan qaramada midoobay maamusha war hawada mayaga maamuli kare ee upper airspace-ka ee hawada badqabka hawada aqoonna uma leh xeel dheerayaal uma hayaan waxa maamula dadkii Nairobi ku maamulayay waxay maamuli ka yihiin amnigiisa sugi kari lahayd xaafadaha Muqdisho madaxtooyada duleedkeeda badda cirifkooda u dhow ayaa laga quraamay ciidamada Afrikaan ciidamada Amisom baa ilaaliya magaalada Muqdisho amnigeeda iyo badaba marka ma waxay maamuli karaan airspace runi sumay sheegin aad baa maasaysa su'aashaydu waxay tahay waa doodii u dhaxaysay un aragtida kala duwan ee mas'uuliyiinta waxaan weydiinayaa hogaamiyaha xisbiga wadani xirsi cali xaaji xasan 8 wada hadal oo kamida wada hadaladii la galay ayuu ka qayb galay waxa weeyaan waa mas'uulka ugu badan ee wada hadaladaasi fadhiyay ee matalayay Somaliland iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda saraakiil kala duwan ama wasiirro kala duwan ay ka qayb galeen waqtigii wada hadalka la furay maxamed cabdilaahi cumar haado maxamed biiciyoonis haado ama sacad haado ha lagu kala dambeeyo aragtida ah kala bedelka haddaba midho dhalka dadka Somaliland hogaamiye mar kaliya kumaydaan soo celin
aragtidaad caawa halkan aad ka dhiibanayso ee ah caqabada ka soo noqotay wixii lagu wada hadlayay ama maydaan furin manaad furin dariiq kale oo ka duwan kii hore in loo maro waxa lagu wada hadlayo taas miyaanay noqonaynin dhaliil idin dul taala tiimkiinii waqtigaa hogaaminaya xukuumadda eed adugna kow ka ahayd بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonay inaan ku bilaabo su-aashiisa anuu ka jawaabaya horta marka hore ma la wada hadlaa iyo lama wada hadlaba dooda ka bilowdeeno waxaan anigu aaminsanahay inay marka horeba dood jaban tahay number 1 ma la wada hadlaa iyo yaan la wada hadlin maahe waa sharci dalku leeyahay saddexda golo u codeeyeen option maaha haddaynu option siyaasi si fikir uga doodayno doodu way furanto muwaadiniintu way ka hadli karaan laakiinse waa sharci in wada hadalo waana wax ummaddu isla qaadatay number 1 marka labaad dooda odhanaysa waxba kama soo bixin oo maxamuud ka dhawaajiyey oo ama dhalays bay ahaayeen iyo dee waxba kama soo bixin iyo dee faa'iiday lahaayeen anugu say isu qabanayso garan maayo dee haaya maya waxa u dhexeeya ma aqaano ama waa inuu ku adkaysto faa'iiday lahaayeen oo midho dhal bay lahaayeen waxa ma dhalayskay dee waxba ma dhalo faa'iido iyo khasaartoona ma dhalo marka taasu waxaan isleeyahay waa dood jaban oo dood saxa ma waa marka labaad waxaan isleeyahay waxaynu degdegsanaynaa haddaad i weydiisay fawaa'idii ka soo baxday caqabadda waa international wadahadaladii soo socdoo dhami waqti dheer bay soconayeen innagoo aanan rajaynaynin kana dhiganaynin waxa weeye inay halkaa inala gaadho target camaliyatu salaam fi shaqri alawsat 60 sannadood bay soconaysayo ilaa maanta falastiiniintu qadiyadoodii kamay tanaasulin war waxa raka kaa gale dood baa taala waxayni inagaa geynay inagoo jibaysan maantana inagoo jibaysan inaynu nahno la hadlimayno qol isku xidhnaa sax maaha waa rag baa waxay naga dhexeeyaano may ahayn caqabade maalinba meel bay istaagaysay maalinba in yar baa la isla gaadhay ninka qawadaya waxaan leeyahay markii hore waanay ka dhawaajiyey adeer wixii soo baxay waa piece of evidence waa caddayn hadduu ka baxo qofka daliishanaya way ka baxeen hadduu ka baxo waxa aad dacwadda la doonaysa leedahay fagaaraha la isugu kaaya yimaado maxaad la tegaysaa haddaad adigu wixii soo baxayba aad yacni kuweeshan garayso maxaad la tegaysaa fagaaraha waxaan ku xigsiinayaa waxaa ragga qaarkii halkan aan ka maqlayaa in badanna maqlaa hana la dhexdhexaadiyo waar dunida hal danoo saaxiiba maynaan kasban ilaa hadda kumaynaan guulaysan aynu runta isu sheegno markaad bad ka dhigtee tiraahdo ha naloo garnaqo daadeer gartaasi way dhaqanta dowlad soomaaliya la yihahdaa jirta oo la ictiraafsanya dunidu resolution kastoo soo baxana waxaa ku qoran territorial of integrity of Somalia is reserved way ilaashan tahay territorial Somalia integrity wuu ilaashan yahay adeer haddaana doonayn inaynu doodno oo miis ka dhigno oo tan aynu sheegayno wix dhibtii lagu geystay aad soo dhigto oo sucaad waan ku waafaqsanahay qodobka ayaynaan ku koobin xaasho kumaynaan koobinna yaynaan ku koobin ictiraaf raadintii wadahadalladu waa subject ka mid ah weygii aynu doonaynay in dalkeenu ictiraaf helo waarin haddaynu gar leenahayna aynu fagaaraa tagno oo gar naqsanno oo marka la leeyahay maalan imika waxa laga yaabaa waxa loo dhigayaa fagaarayaashii hore inaan la joogin maalan aan tusaale soo qaado burinaya hadalka noocaas fagaarii Jefferson House waxa ku qoran qodobada waxa ku hoosgaraynayay Ingiriiska iyo Norway iyo EU oo madasha joogay lagu wada hadlay wixii ka soo baxayna endorse gareeyay kana hadlay fagaara caalami ay ahayd saxaafadda caalamiga loo soo bandhigay Abu Dhabi markii lagu wada hadlay Anwar Qarqaash
waa wasiir ku-xige wasiiru dowlaha khaarijiga ayaa dhex fadhiyey oo joogay lagagana hadlay fagaariya caalamiga ahaa oo saxaafadda dunidoo dhami joogto wax qarsoodiya may ahayn oo lagu soo bandhigay turkiga sidaasi leeg ayay ahayd waxaan ku soo ururinaya waxbaa soo baxay faa'iido leh haba yaraatee waan hortiina la keenin dabadiina la keenin laakiinse xukuumadda joogta iyo xubnihii waxa weeye sii waday hadday ku guuldaraystaan inay gaadhsiin kari waayaan wixii hore daba galaan waxaa la yidhaahdaa waxay soomaalida ku maamaadaa farsamo yaqaanka farsamada xuni dubbiisu canaantaa waad mahadsantahay wasiir marka waxaan leeyahay haddaynu iibin kari weyne innagu yaynaan odhan waxa may soo bixin aan fagaarayaasha tagno oo aan iibina waxaynu waa mahadsantahay waad mahadsan tahay maxamuud xaashimaan mikrofoonka ku celin waan idiin soo noqon doonaa sucaad iyo maxaad ka qabtaa dooda xirsiye ah inaad laba qodob marna leedahay waa madhalays marna leedahay faa'iidaynu ka haynaa maxaad ka qabtaa waxaan leeyahay waa hadalkaygu wuu caddaa haddana waa ku celinayaa wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan madhalays bay ku dambeeyeen xirsi ha sheego midhaha qarankani ka goostay isaga laftiisu waa kan la guulaa la gadhay bal guulaha ha sheego haddaanu isagu isburinayn anigu waxaan idhi waxaynu ka faa'iidnay waayo aragnimo iyo inaynu intantiisu wada hadallo rabitaankii dunidana aynu raalli gelino intaasaynu faa'iido ka helnay laakiin midhihii aynu doonayna kama inaan goosan waxaan kaloo saxayaa iyadana xirsi hadalkiisa fagaarayaasha waa laynagu heliyey buu yidhi ma ahayn hadalkaa arrintaas sidaa ma ahayn fagaaro caalami oo laynagu dhexdhexaadiye ma jirin waxay ahayd waxaynu qaadanay waxa la yidhaha the role of facilitation waa laynoo fududaynaya inta shirka laynoo furo ayaa laynoo kala jegli kii lankasta kii dubay iyo kii turkiga intuba saasay ahayd waxa maantaynu u baahanay mada laynala joogo oo layna dhegaysto oo laysu keen jeejiido oo layna kala fiqiyo mediation baa la yidhahdaa hadda uma joogo anigu arbitration in laynoo garnaqo aad u mahadsan maxamuud xaashi sucaad baan ku celinayaa sucaad baan ku celinayaa way qodobkaan ugu celinayaana wuxuu yahay haddii hogaamiye xirsi uu aaminsan yahay inaan adduunkiiba inaan saaxiib ku lahayn gartiina naqan tahay marka la wada fadhiisto soomaaliyana ilaashan tahay iyadana loo xukumayo dee wixii meesha yaalla oo qaraar waloo soo baxaaba uu xaggaa dee tilmaamaya in la aqoonsan yahay nidaam iyo system wax walba leeyihiin dadkii somalilaneed adigu matalaysay ee aad iminka halkan u fadhido ee aad u tahay ururada bulshada rayidka ah ee somalilan maxay aragtidoodu noqonaysaa markay halkaa taagantahay qaabkan inuu qaab nooceeyo loo wajaho maxay tahay adiga aragtidaada horta mid baan ku noqonayaayo maxamuud xaashi waan hambalyeynaya waayo waa siyaasigii somalilan ee inuu la qaldamay un qirtay weeye problemka ugu weynayna haysta somalilan haddaan nahay qalad baynu samaynaynaa kii baynu ku indha adagnahay waxa weeyaan waa run experience baynu ka soo qaadanay laakiin marka la leeyahay baarlamaan iyo guurti iyo dad baa ansixiyey maxay hordhigeen waa TPDB world oo kale moogta waxay hordhigeen inay tegayaan shir ay ka soo qayb galayaan 51 oo 55 dal oo qadiyadda Somaliland la soo hordhigayo waxaanay tegayeen shir aanay ajendihiisaba ku jirin marka horta waa misleading dadka waxa loo sheegay ee la yiri waa laga soo qaadayaa meeshaas iyo waxa ay u tageen waa laba wax oo aad u kala fog dhibaatada kale jirta waxa weeyaan wax walba oo Somaliland masiirkeeda tahay in maartay laga hadlo way qarsanayeen dadkani hoos bay u sameeyeen todobada shiraynu ognahay boqolaal hoosaada jiray aqoon-yahano wada hadlaa jiray maxay intuba way fail garoobeen waxaa jiray hoos muxuu yahay
me finish ayga dhexgelin ay xirsiba ma dhexgelinine waa markay mid kale aan sheegaya wuxuu sheegay faa'iidooyinkii shirarka laga keenay inay ka mid ahayd scholarship-yo inoo ogol yahay xilliga uu ka hadlayo waa xilligii tahriibkii ugu badnaa uu socday wey scholarship-yadii laynoo ogolaaday xaggay jiraan wada hadalgalada aynu la hadlaynaa haddaanad adigu ajendaba lahayn oo ajendaha dadkaad u tegaysaa kuu sadgaraynayaan faa'iidadaad ka soo keenaysaa maxay tahay midda kalean doonaya inaan u sheego waxa waa lagu leeyahy waxaa tiri waddankan waan ka go-ay gaar baan ahay haddana hawadiisii baan maamulaya waxay yacni maskaxda gala maaha annagu markaan idin diranay idinmaanaan diran hawo waxaan idin diranay waxay ahayd inaad ictiraaf ka soo qaadaan inaad ajenda hagaagsan keentaan bal u fiirsada wixii guddi ka qayb galay wax allaale wixii guddi ka qayb galay aynu garanayno reer hebel baa lagu xulayay qof quraatoo lagu xulay aqoontiisa way yaray qof walba waxaa lahaa shantu reer hebel ma ku jiraa darafuhu ma ku jiraan maxay ma ku jiraa laakiintiise looma xulaynin waxgarad inay yihiin looma xulaynin marka horta shirarkaasi aynu galnay failure baynu ka qaadnay masiirkii somaliland hoos baa loo dhigay waxa maanta aan almost nahay dowlad goboleed baynu la siman nahay wax 4 shilimaada ma waxay kula tahay UN-ta iyo international community-gu inay ku qadin lahaayeen haddaad diidiba lahay shirkooda waxa xaqiiqo ah oo run ah kulmiye markuu electionka la gelayo udub inuu heshiisyo maraykanka la soo galay inuu ogolaan doono wada hadallo Soomaaliya Somaliland dan Somaliland lagama hadlaynin waxa laga hadlayay dantii ballamihi ay qaadeen inay fulisaan haddaad kulmiye tihiin iska qirta waa ku feelgarowdeen Somaliland maanta meesha ay taalo waxa loo baahan yahay in kor looga qaado abiyana mid baan u sheegaya in adeer waxa suuqa ku dhacay Somaliland waa midka adiga kugu dhacay weey ma oran kartid xasuuq loo dhan yahay xasuuq loo dhan yahay ma jiro dad un baa la gumaada gaar marka horta haba soo hadal qaadin inaad tiraahid garowa ay ka dhacday xasuuq taas inaga inama khusayso Somaliland baa leena yidhaa ya inama khusayso adiga waxay tahay inaad u doodid xasuuqi Somaliland ka dhacay dadkuna tolkaayo dadkaagiya oo Somaliland ku matali lahayd maanta haddaad madaxweyne ku xigeen ahaan lahayd ayaa la gumaaday hay oranina markaa garowaad xasuuq ka dhacay 1977kii od mahadsantahay aad baad mahadsantahay Dr. Abiy baa ka hadli doona isaguna aragtida Suucaadi wuxuu ka qabo soo noqonaya bismillaahir rahmaanir rahiim waxaad moodaa waxaa ka dhacay crossfire kulmiye dhexdiisa anigu haddii aan xoogay temperature-ka yara dejiyo aragtideeda ku aadan wada hadalladu maxay u najixi waayeen oo failure u noqdeen waxa weeye number 1 wada hadallada cidda inay dhexdhexaadinaysay waxay ahaayeen facilitators ee ma ahayn mediators dad waxay ahaayeen inoo diyaarinaya meeshayna ku wada hadli lahayn iyo guryihii iyo hoolashii laakiin mediators qabanaya oo haddii la kala kaco dadka isu celin karaya ama wixii ka soo baxa iyagu fulinaya authority awood leh ma ahayn marka inagu baa la isu keen daaya xabaal idinkeed loo kala tego qodobka labaad waxa weeye anigu aan u arko madaxweynaha ama xukuumadda Somaliland waxay la cimri tahay taqriiban 2 ilaa 3 xukuumadda Soomaaliya haddaad u fiirsato madaxweyne Axmed Maxamed Silaanyo wuxuu la bilaabay wada hadalka Shariif xasan buu haddana la hadlay farmaajo soo gaaray walow aanay wada hadal بمعنى مدحوينه هالك مدحوينه الصومالي لو حسوا الصينية لما إلا صدق مدحوينه الصومالية متكستنا مركب مدحوينه الصومالي وحلا يمنا يا أجنده سيفكر كيسي برايورتيز كيسي مركورت إنه قبل أينو تيرمس كأنه كوسو كومنا أنت شرق وقولي هاي سيبر لما مدحوينه أول هذلان وحب العبان ولا ما يسترمان أنت واحد صدقية واحد شري فويسز مركز تبع يعضد إنك دحلنا oo markas taqayna meel bataagna maxaafisha adduunka lahaa no maya iyo mucaaradad xaqiiqo jirtay ahayd oo wada hadalladan iyo goonistaageen iyo wax walba iyagu marka ageyniska ahaa tii ilaa xad xal baa laga gaaray tuudiya
ilaa xad laakiin ma dhammaystirna taasina factor kale ay ahayd oo daciifinayay arrinta wada hadallada inay sii socdaan najaxaan ugu dambayntii sucaad waxa weeyaan waxaan ka hadlayaa anigu rajiimkii maxamed siyaad dhibaatooyinku geystay un baan ka hadlayay laakiin waxa weeyaan waanan xusood tii ku dhacday somaliland ama gobollada waqooyi tii ugu cuslayd uguna xanuunka badan uguna dambaysay ahayd laakiin adigu maxaad u sheegi weyd u xusi weydaa xasuuqa ka dhacay taleex 1920 aad baad mahadsan senior professor hogaamiye xirsi sucaad waxay sheegtay in maxamuud xaashi khaladkiisii uu qirtay idinkana aad diidan tahay weli inaad khaldanteen ajandayaal hoosena idiin qarsoonaayeen scholarshibyada ay carabka ku dhufatayna aydaan sheegin waktigii loo baahnaa ood iminka sheegaysaan adoo soo koobaya maxaad ka qabtaa aragtida eedda sucaad waxaan horta saxayaa sucaad marka hore dastuurka somalilan hawada malaha waxay u taqaanaa wax kale dastuurka somalilan wuxuu ka kooban yahay xuduudiisu hawada badda iyo dhulka marka xuduudeennii bay ka mid tahay hawadaada inaad ilaashato hawadaada inaad ku garnaqsato hawadaada inaad soo dhacsato wixii aad ku leedahay marka hawada in laga hadlaa subject laga wada hadlayo oo xuduudeennii sidaynu odhan lahayn annagaa leh wixii ka soo baxnana maamulkeedana annagaa leh ayay ahayd waa marka labaade qodobka odhanaya waxaa jiray baalka la yidhaahdo fadhiyo kaloo lagu wada hadlo maya qofkii oga ha sheego preparation committee waa laga yaabaa ama diyaar garow guddi inay isu timaado oo sometimesna kuba qoran heshiisyada guddigaa isu iman doona oo ay guddiyadu sii wada hadlaan sometimesna yacni ay u diyaar garoobayaan ay isku sii wargeliyaan laakiinse wax wada hadala oo official ah oo aan ahayn intii 8 goobood ka dhacay oo mid walba document lagu saxeexay oo halka la isku qaldayo maxamuud isku qaldayo fagaaro caalamiya may ahayn fagaaro caalamiya bay ahayd laakiinse facilitation process bay ahayd may ahayn mediation facilitation process bay ahayd wixii ka soo baxa dunida loo bandhigayo oo ay dunidu markhaati ka noqonayso waayahay marka wixii soo baxay saasay ahaayeen manay jirin wax qarsoodiya haba yaraatee kalsoonidii aanu ku tagnay ayaanu ku meel marinay iminkana tii baan ku kalsoonahayo hadduu maxamuud markaanu dowladda ahayn isagu markaana uu aaminsanaa inay toos u socoto iminkana uu leeyahay wixii aanu wadnay waa qalad anigu wixii aan shalay sameeyey wixii saxnaaye aan shalayta aaminsanaa markan kulmiye ahaa maanta anigoo wadaniya baan aaminsanay inuu saxan yahay ma ihi dadka isbedbedela mabaadiida waxaan ku darayaa waa marka labaade waxaa ka muuqataa halkan daani abiyinu baa wehelinay inta kale kulmiye ahaayeen oo aaminsanayay marka jahwareerka kulmiye inaanu geer haysan oo wasaaradii khaariji ha noqoto ama ha noqoto qorshe inaanu kulmiye maanta geer haysano meel uu socdaba aanu garanayn oo wada hadaladii wixii ka soo baxay garanayn uu leeyahay waa wixii uu soo saaray uu leeyahay waa madhalays oo meesha loo socdo aanu garanayn oo kaliya waxay inamada tiriyey madaxweynaha sheegeen 126 jeer buu farmaajo ka hadla oo farmaajo uu ka hadla war waxa cayd waxa ma tarto inaynu caydtana waxba tari mayso garnaqsi bay u baahan tahay diyaar garow bay u baahan tahay qorshe la wada samaystay u baahan tahay waan ka baxay aad u mahadsan yahay xirsi professor Samatar baan ku noqonayaa oo aan ugu dambaysiinayaa teamkan halkan xisbiga kulmiye hogaamiye wuxuu ku sheegay jahwareer intiina badan marka laga reebo abiyana wuxuu sheegay inaad mabaadiida kulmiye aaminsanaydeen adigu waad ka mid ahayd maxamuud ka mid buu ahaa injineer maxamed xaashi markii hore ka mid buu ahaa markii dambe uu ka gabaday markii hore ka mid buu ahaa oo qodimadiisu ahaa markii dambe ha ka gabado laakiin markii hore ka mid buu ahaa hadalku waa saas aan ku noqdo qodob kale aan ku noqdo marka professor Samatar waxaad aaminsan tahay in lagu wada hadlo saddexda dariiq ee ah mediation in la isdhexdhexaadiyo
facilitation fududayntii iyo arbitration oo la garnaqsigiya ma in saddexdaa dariiq keebaad aaminsan tahay in lagu wada hadlo si looga baxo jahwareerka kulmiye ku dhacay sidoo hadalka u dhigay hogaamiyuhu anigoo dedejinaya horta kubadda halka ka socota waa mid faa'iido badan leh faa'iido badan bay leedahay maxamuud iyo xirsi kubadda ay ciyaarayaan laakiin intiina kubadda ciyaartaa anu bari baan ciyaari jiray inta kubadda ciyaartaa laba game baa jira game waxa weeye baagga iyo qofka winka ciyaaraya feedha ciyaaraya gameka ka dhexeeya labadooda kana uu daafacayaa kana inuu goolka dhaliyo doonaya waa important detail badan baa halkaa ku jirta laakiin de garoonka kubaddii weyneeda 11 qof ay ciyaarayeen taa laguma ma noqonayso marka it's interesting laakiin oo wixii faa'iidooyinkii ka soo baxay hadalladaas anu waxaan qabaa inay qiimo weyn leeyihiin ciddii doonta ha keentee inay faa'iido leeyihiin but this is the problem may taaban su-aasha somaliland hortaalla from 1991 su-aashuna waxa weeye sidaynu u noqonnaa waddan xora oo soomaaliya marabadoobteedii ka tegay oo adduunyadu taqaana su-aasha taa wey kolka arrimahani faa'iido badan bay leeyihiin laakiin de waxa weeye kubadda koonaha ka socota ee tii weyneedan ahayn tii weyneyd ilaa maanta 28 sannadood waynu ka qatanna mana soo dhawa haddaynaan bedelin strategiga iyo tacticska iyo dadka inoo qaadaya haddaynaan bedelin sidaa un bay noqonaysaa 28 years from now haddii la gaadhaba second point I want to make waxa weeye arrin aad iyo aad u culus oo u taabtay abyan this is very important folks very important okay maaha movie maaha kale this is serious business waana waxay ku xidhan tahay qadiyadda mustaqbalka 4 milyuun oo qof yaan ka hadlayna this is serious maqal anu markaan reer somaliland ee bari degan la sheegay laascaanood buuhoodle caynaba parts of it dhulkaa markaan dhegaysto ilaa maxaan ku rahay sanaag certain parts of it xasuuq bay ka hadlayaan iyagu maanta xasuuq bay ka hadlayaan waxay ka hadlayaan in dumarkooga la kufsaday bay ka hadlayaan waxay ka hadlayaan in guryahoogii la burburiyay ka hadlayaan and I have seen some of it oo laga eriyay guryahoogii bay ka hadlayaan kolka haddaynu doonayno inaynu ka dhigno maxamedow haddaynu doonayno inaynu ka dhigno xanuunka ina haystaa inuu yahay mid u noqonaya hub dhaqaajiya somaliland adduunyadu inay garato oo qadiyadeena la garto xanuunka waa in la dhameeyaa meel quruna laga soo qaadin this is very important and that's the point he's making maaha okay maaha un maxaan ku rahay waqtigii maxaan ku rahay ingiriiska iyo maxamed cabdillah xasan maaha that's important now dad la sheekaysatay iyaga haddaynu haysano dadkaasu inay yihiin dad reer somaliland oo wadaniyiina oo qadiyadooda iyo teenu ay isku xidhan tahay haddaynu haysano waa in la gudagalo haddaynaan taa helin intii dhawadna waa aniga halkan ka sheegay wayna soo taagay jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa wayna soo taagay adduunyada halna aqoonsada un baynu odhan inakoo dacwadeennii soo bandhigayna way inaga ag hadli waxay odhan doonaan waxa kama jiraan annaguna kuma jirno dush professor Samatar adoo mahad hadalka adaa ku haysta su'aal baan doonayna ka dhex weydiiyo doodaada haddii aad aaminsan tahay in la daweeyo dhibaatada bari aad ka sheegayso dadkuna sidaa ay qabaan xukuumaddii hore madaxweyne Zealand ay la gashay heshiisyo kala duwan oo maray heerarkiisi kala duwanaa xukuumadda aad dhistay ee kulmiye ee imika joogtaa miyaanay lahayn mas-uuliyadda waxaad ka sheegaysa inay daweyso oo dhibaatada adigu qayb aanad ka noqonaynin marka su-aashaasi iyo kuwo kale oo ay isku jinsi yihiin way soo noqnoqotaa caawa shay baan doonayaa inaan bal mar labaad inin caddeeyo
soo damaad garan anugu diyaar baanu ahay maxamuudna igu raacayaa baan filayaa inaan ku dadaalnay inaan qorno xisbigu arrinta uu ummadda u soo bandhigaya ee uu kaga doonayo in cod lagu siiyo anugu I take responsibility for that not all responsibility badan baa ku jiray laakiin qaybtan kaga jiray waan ogolahay qorniinkii iyo programkii ummadda la soo hordhigay waxa laga hadlayaa markaa dee wixii la soo hordhigay ummaddu ay iibsatay fulinteedii baa laga hadlayaa fulinteedii yaanu walaalayaal dawladda kuma jirate soo kuma jiro soo garmis marka xisaabta hal la kala saaro haddii lay leeyahay wixii aad qorteen ee aad keenteen waxaan faa'iido lahayn buu hayo waan ogolahay markaa taa inaan dacwadeeda qaato hadday sidaa noqoto xukunka laakiin dawlad aanan ku jirin oo aanan ka mid ahayn samatarow maxay u socon weyday dee aniga su-aashaasi ima qabatee dadka dawladda ku jira ee dhan hal la weydiiyo oo ha la yidhaaho wixii la qoray ee la dhigay ee lagu heshay ee ummadda loo soo bandhigay maxay u socon weyday waxyaabaha ugu horreeyana haddaad eegto barnaamijka xisbiga ugu horreeya waxay ahayd arrintan national belonging waddanka in la wada leeyahay dhulka wax ka dhiman yihiinna boogaha yaallaan in wax laga qabto soo aad garmays marka ay inoo dhammaato sheekada aynu doonayno inaynu adduunyada u sheegno ay noqoto mid inoo dhan haddii aan taa la helin anu waxaan qabaa somaliland qadiyadeedani in badan dee way ku tiirsan oo ay si gooniya u taabato laakiin in badan ayaa dhagaha ka xidhan doona hadday taasu dhacdana we can't sell this to the rest of the world dadweynahan ku celinayaa in yar isuga daqiiqad yar un isuga waan idinku celinayaa in daqiiqad yar isuga hal daqiiqad oo kooban maxamuud waa haysta maxamuudaan ku gabagabaynayaa kelmadda haddii kulmiye uu isku dhex yaacay oo uu siyaasaddii arrimaha dibadda ku jahawareeray oo dooda halkan taalla fikradaha ka soo baxay ay tahay professor samataroo kulmiyena uu qabo waar gudaheennina ha la daweeyo oo dhinacyada dhibaatadu ka jirta si meel loogu wada jeesta ha la daweeyo aragtida abiyana uu maxamuud xaashi dhegaystay miyaan la odhan karin kulmiye aragti ahaan maqaarkana uu ka wada socdaa hoostana uu ka kala socdaa oo ma dhisna hanaan wanaagsan oo loo jeeyo dadka shacabka ee uu u talinayo hadday dawladdiinii tahay iyo hadday dawladda maanta joogto tahay bismi illah waxaan runtii aaminsanahay xaqiiqaduna ay tahay kulmiye markii horena ma jahwareersanayn maantana ma jahwareersana kulmiye mabaadi'da wada hadalka soomaaliya somalilan ee guud in la wada hadlo iyo dariiqa loo marayo waa ka midaysannahay madaxweynaha xukuumaddiisa aniyo samatar professor samatar aragtiyaha inta ka hooseysa wixii aan principle ahayn waa aragtiyo shakhsiya kulmiye dee sida bini aadanka ayuu kala aragti duwan yahay ee shakhsi taa iyada waan calaamadinayaa saaxiibkay xirsina waxaan leeyahay shalay haddaanu kulmiye jahwareersanayn ma markaa dee ka baxday buu jahwareer kuula muuqdo sawirkaa kula yeesha taasina aragti saxa maaha sucaad waxba hadal fara badan bay halka ka tiroo ku tiigaali maayo waxaanse leeyahay inagoo ishortuban dee horta iyaynaan ishafrin waxaan anigu yidhi waanu ku khaldanayn ma odhan wada hadalkii somalilan iyo somalilan waa lagu qaldanaa ma odhan waxaan leeyahay sax bay ahay eed bay naga rugtay waa aragnimaynu ka korsanay warada nin intuu yidhi diiday waa nin wuxuu dhalayna diiday waxaanse idhi ma dhalays bay noqdeen midha kamaynaan goosan waxaynu ka doonayn waxaan manayaa hadalkaa inaan la bedbedeli karayn hadalka dariiqaynu u marayna facilitation bay ahaydoo waa laynoo facilitate garan jiray mediation ma ahayd xersina referency buu mar labaad ku sameeyey xaggii dambe ka soo akhriyey muxuu ahaa baashi waxaan ku gebagabaynayaa aniga iyo xirsi iyo sucaad iyo doodaydu aad baanu isugu tuurtuuray saaxiibkay professor samatar waxaan leeyahay daadii abyana waxay ahayd inaadan marba israaciine
dee idinkuna aa isu celcelisaan oo mahadsantahay aad mahadsan waad mahadsantiin ninkaas xafigaan ugu horreysiinaya waan idinku soo celinaya xaggii tiimkana بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وبركة كارية مدوات دارين علين لبني ويقى السؤال دارين علين وحويان سعاد سيدا شيكتي أرنتا إن وضع هذا لدى سوماليا سوماليا نقطة إيش قورة إن كفر سنو ما قبو صوبتو وحويا سوماليا لان صدن سنو كدواد وحي ما أنت قبصتي وحي كو قبصتي يدون سوماليا لهالدين ويعني نقول مشغولين واقعي سؤال تاسوامي qodobka labaad ee kala dhalinyartan waxaan leeyahay yalla inoo bahla gelin wixii dalkan ka dhacay inay tahay ha noqoto darwiishkii ha noqoto SNM maha waxay ka mid tahay asbaabaha loo lumiyo gartaada markaad waxaad ku gar leedahay laga luminay lagu diidsinay lagu nacsinay su'aasheedu mid waa xirsi midna waa professorka xirsi waxa tiri maymkas ban dunida dal sideed wada hadal baad ka qayb gashay intaas oo sanaad wasiirka madaxtooyada ugu awood badan ahayd inaad dal kasban weydaa soo qaybtaada ma aha maanta markaad leedahay dal maynu kasban wada hadalladii inaynu sii galno yaa Somaliland ku ogtahay eed ku geynaysa beesha caalamka horteeda professorkan waa su'aal kale professor sidaan u dhigo tukaan baad haysatay waan ku yimid hadhuur baan ka iibsaday markaan ka baxay baad iga soo doobaxday waxaad igu tidhi hadhuurkani wuxuu yahay iska daadi markaan ku iga celin waxaad tidhi tukaankii waan ka imido ma haya imika tukaankii ku noqo see doonaysa inaan ku rumaystay tukaankii ka timid ama ka tag adigu ama laga eriyo hadhowna adii cayda hadhuurkaad iga soo iibsay sidee isu qabanaysaa sarbeebta ka daa su'aal toosa bar si kale aan u dhigo si toosa professorku wuxuu ka mid ahaa dadkii calanka u siday ee hormoodka u ahaa ee dad badan ugu codeeyeen kulmiye isaga darti iyadoo hayb iyo qaraabo mid la eegay maanta inuu yiraahdo kulmiye anigu kuma jiro mas'uuliyaddeeda ma qaadayo miyaanu hayn hadhuurku iga iibiyo caayay hadhow almaasanta way su'aalaha waynu badsanaynaa de haddaad sidan oo dhan gacanta u taagtaan su'aalahana waan badini waktiguna uu dheeraan shaqada la ii diray waxa weeyaan inaan waktiga ilaaliyo hadalka ma hayna kala gabade inaan ilaaliyo weeyaan idinkuna istajiya oo su'aalaha intaasoo dhan ma wada siin kara iska nasta hablahana waan siinayaa habluhu xaq badan bay leeyihiin gacanta xooga u taagaan iyagu ood mahadsantiin way inantaasi bismillaahi raxmaani adigoo aad u mahadsan aaraar ma jirto su'aashun toos u gal su'aashaaduna ha noqoto specific waxa ku qotonto hal su'aalun baanad leedahay anigu su'aal ma qabo laakiin waa tala soo jeedin magacayga waxaa la yidhahdaa nuur axmed waris tala soo jeedinteedu waxay ku aadan tahay professor ismaaciil axmed ismaaciil samatar waxaan ka mid ahay xisbiga kulmiye waxaan ahay dadkii barnaamijka xisbiga markii uu qoraayay 14 qof ay soo xulay ee la shaqeeyay waxaan ka mid ahay wasaaradda arrimaha dibadda oo xubin aan ka ahay waxaan professor axmed aan ku codsanayaa ama talo u soo jeedinayaa tacab badan ayaa kaa galay xisbiga tacab badan baa waddankaaga kaa galay waxaan dareemayaa qalbigaagu inuu isbedelay waxaan kuu soo jeedin lahaa tacabkaagii in aanad halkaa kaga dhaqaaqin siyaasad degan inaabti aad ku hagaajiso aad baad mahadsantay way waa ka soo noqonay waayahay way dawo anigu waxaan weydiinayaa su'aal haddaanu nahay dadka reer somaliland ee shicibka ah caawa halkan war weyn baa nooga soo baxay waxaan qabaa wadahadalladii somaliland iyo soomaaliya dhex maray iyo maraaxilkii ay soo mareen caawa halkan lagaga warramay inaan su'aad weydiiyo su'aal ku saabsan oo ah su'aad waxay sheegtay in wadahadalladaasi ahaayeen qaar aan sax ahayn waxa kaloo sheegtay in dadkii wadahadal ka qayb galay khiyaamo sameeyeen shirar qarsoodi ay galeen xisbiga kulmiye hogaamiyihiisuna uu maraykanka la soo heshiiyey xisbiga kulmiye xilligaa waxaa hogaaminayay mujaahidkii weyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo kumaan aqoon
qorshahana iguma jirin axmed inuu dalkiisa weligii khiyaamo ka sameeyey halgan dheer buu soo galay tacab dheer buu sameeyey somaliland dhismaheedu ku hawsho sucaad waxaan weydiinayaa sucaad waxaanu ka rabnaa caddayn cidda khiyaamadaa samaysay shirarka qarsoodiga gashay iyo hadduu jiro warkaasi dee waa in maxkamadda loo soo taagaa dadka hadday caddaan weydana sucaad ka hadhi mayno su-aashaydu waa mahadsantahay waxaan doonayaa inaan barkhad baan filaya inuu su-aashay weydiiyey marka su-aashu baan ku koobsanayaa bay ila tahay su-aashu waxa weeye haddii aynan dunida saaxiib ku lahayn waxaan filaya dee inuu weydiinayo wasiir baad ahaydo 5 sannadood iyo googoobaad joogtay maxaad qabatee soo ma waxa la qabtay may ahayn somaliland 5 sano kaliya ma soo jirin 28 sannadood waxaynu ku dadaalaynay oo xodanaynay inay dunida aynu iska dhaadhicino way jiraan runtii inuu magaceenu deyn badan gaadhay Ethiopia inoogu dhaweyd oo ahaa dalka diplomatically inoo qaabila ina siiya diplomatic relationship ina siiya waad arkaysaa jawgiisa halku isu bedelay waxaanu caan ku ahaa inuu yiraahdo noqon maayo dalka koobaad ee ictiraafa laakiinse marka la helo talabaad baan noqonay kii koobaad weynu weyni waxay in badan aynu oran jiray oo aniga intaanan xukuumadda iman ama aan siilaanyo dalka madaxweyne ka noqon waxay saaran tahay daaqadda ictiraafkii daaqaduu saaran yahay computerka aynu soo gelin way meel fiican buu marayaa laakiin si anigu xaqiiqadan kuu sheegaya oo ah waar dunidii wax badan weynu inaynu wax qabsanay way inoo garaabayaan inaynu meel fiican joogno way inoo garaabayaan laakiinse kumaynaan guulaysan wax shakhsi ku xidhanna ma aha kumaynaan guulaysan inaynu ku qancino qadiyadeennu ay ictiraafaan waxaan wada hadallada waxa loo sii wadaya wada hadalladu dhammaan taariikhda intii dhacday sanad iyo 2 iyo 3 kuma dhamaadaan wada hadallada iyo dadaalada kale ictiraaf raadinta oo waliba qorshaysan oo tusmaysan inaynu dunida geeyno oo gaadhsiino oo ay ugu horeyso waad aragtay Coca company dunida daraf walba waa laga yaqaanaa intaan lagu aqoonsan oo lagu garwaaqsan Somaliland iyo Soomaaliya qofka aad u sheegto dunida waxa laga yaabaa inuu kala saari kari waayo inaynu horta marka hore dunida iska dhaadhicino inuu gaadho oo uu jiro dal yar oo Somaliland la yaado status quo-gaynu nahay waxaynu nahay wax kale iyo aqoonsanba ayaa ugu horeysa in la yaado waar dal qolo yar oo Somaliland la yaado oo dimuqraadiya oo nabdoon oo maamul wanaagsan oo horu markaynu sameeyno wali waynu dhitinaynaa ayay horta ugu horeysa fagaaraha aynu ka hadlayno aynu ku wada hadlayno Soomaaliya ama facilitation ha noqdo ama mediation ha noqdo ayaa ku xigi doona iyo mechanism kasto suurtagal aad maadsan Professor Samatar su'aashii de horta the plea ayna walaashay ka timid aad bay u mahadsan tahay meel baad taabatay soo alkuhu aad baad u mahadsan igama aha anigoo amba qalbigeygii madoobaaday amba maskaxdeydii bedelatay igama aha laakiin sidiinan dee kubadda socoto waan daawanaya halkay ku dhammaanaysay sida u socoto aan waxaan isku dayay intii taagtayda ahayd inaan waddanka ku soo biiriyo way yarayd laakiin aan ku soo biiriyo fikrad waxaan samayn karo xisbiga aan ku soo biiriyo dadaal iyo ummadda oo lala hadlo oo laga dhaadhiciyo xisbiga madaabdiisiisa taa waan ku guulaysanay guusha in yar baan ku leeyahay wax badan maaha in yar baan ku leeyahay and I treasure that laakiin dee xisbiga hadduu guulaystay dowlad baa la dhisay anuu dowladdii kuma jiro marka dee faragelis dheeraadoon la galo aan ahayn guubaaba guud waa anigii articalka qoray adduunyada baa laga akhristay halkan waa laga akhristay Soomaali baa lagu bedelay taa aan sidaa u hagaajino taa aan sidaa u hagaajino taa aan sidaa u hagaajino mar haddaanan dowladdii ku jirin waddankana andan kale ahay
oo meel gooniya ii yaallo de anu markaa waxaan istiri roolkaad ciyaari kartaa waxa weeye inaad noqoto positive critic not negative critic positive criticna waxa weeye haddaad negative tahay de waxaanun baad ka hadli tani way xun tahay tani way xun tahay tani way xun tahay tani way xun tahay laakiin haddaad tahay positive critic oo aad waddanka iyo dowladdaba labadaba aad iyo aad u danayso ya waxaad odhanaysaa dee halkaasi way wanaagsan tahay halkaasi way wanaagsan tahay halkaasi way wanaagsan tahay laakiin halkaa waxbaa ka dhiman halkaa waxbaa ka dhiman halkaa waxbaa ka dhiman intaasaan anigu isku dayay sanadkii iyo barhkii ugu dambeeyey welina taa waan wadaa taasi waa kow oo markaa dee maan seexan weli kamaan wada seexan su-aasha labaad ee ah wixii aad noo karisaa dib noogu caydi ya wixii aad noo karinaysay baa dib noogu caydi barkhad hade walaalkay dee su-aashiisii ahayd xisbiga kulmiye wixii aad naga iibisay ayaa aan weli noo dhandhamayn baan filayaa haddaan if I make it very simple aan weli aan noo dhandhamayn dhandhankeygii ma hayno laakiin dee urteedii waadna siisay laakiin dee imika dhandhankeygii ma hayno well waxaa laga yaabaa up to a certain point anigu taa inaan kula qabo waayo dee haddaanan kula qabin hadallada aan soo jeediyay amba artikalada aan qoray probably the last maybe 8 months or so tviyada waa kan maxamed interviewgiisii waad dhegaysan kartaa of July 2018 waad dhegaysan kartaa marka dee wax badan baan kula qabaa laakiin I want to say something on this anigoon ismaydayn isma wada maydhayo waan ogolahay up to a certain point inay weysadii iga jabtay waan ogolahay up to a certain point and two things and then quickly I will let go waxa weeye had iyo jeer in la isku hayo la is ag wado wixii la qabtay ya anu waxaan qabaa dowladda madaxweyne muuse bixi oo madaxda u yahay inay qabatay oon calaamadin karno amuuro aan hore u jirin I can name those kuwa in la garto halkan caawa ma joogno inaan inventoryga taa ka qaadne taasi waa kow wixii weli dhiman amba si qalloocan loo sameeyena anu horena waan uga hadlay dhowr goor dee in farta lagu fiiqo waa important ilan dowladda muusena ma laha xisbiguna ma lehe ummaddan reer somaliland baa wada leh marka in farta lagu fiiqana waa loo baahan yahay oo taladaa la bixiyo waxaan kusoo gunaanayaa waxa weeye I want to repeat this many times as much as possible xisbiga campaignki uu soo galay qof ka ahaa dad badan baa ku jiray oo maxamuud uu ka mid yahay uu qayb wanaagsan ka galay waan ogolahay haddii visionkaasu uu meelo ka dhaawacnaa amba uu ahaa meelo ka xumaa waan ogolahay inaan dembigayga qayb weyn ka qaato waan ogolahay laakiin dee maxkamad aanan dacwad geyn yaan laygu qaadin de please yaan laygu qaadin and finally ciyaari waa geli dambe su-aashii sucaade ayaa noqon doonaa horta su-aashu i weydiiyey waan marka qaar ku xira emotional blackmail aniga horta madaxweynihii hore axmed siilaanyo ee mujaahidka ahaa ee imika retire garoowey inaynu fagaaraha discussion ka keenno horta uma arko mid saxa laakiin mid baan ku odhanaya haddaad tiraahid maxkamad wallaahi haddaynu runa isu sheegno reer somaliland dadka maxkamad u baahan qolkan in lag weeya ee waddanka somaliland ka galay dembi ka galay laakiintiise waxaanu nidhi waa laysu yaro dhaafdhaafayaa qolba marbay dembi gelaysaa kuwaasaa laysku maydhayaa soo maad garan marka taad i weydiisay proofka ugu weyn waxa weeye markii shirkii February la galay waan ku noqonayaa kaasi waa meeshaynu ka qaldanay 2012 kii la galay London lagu galay runtu waxa weeye orod soo baad ajandihii shirkaasi anigu siiraayan kama hadlayo ajandihii shirkaasi kumay jirin Somaliland baa wax loo qabanaya kumay jirin
calankii soomaaliyana isagoo saaran baa shirkaa laga qayb galay anigu waxaan u arkaa markii dadkan lalahaa raalli ka noqda shirkaan tegaynaa hay markhaati furo waxay yidhaahdeen 55 countries baa imanayo foreign affairskooda imanayaan yay la kulmeen aan ahayn William Hague ha sheegaan meesha kula kulmeenaya waxay yidhaaheen ma jirto taasaa kuu buruufa aad bay mahadsantahay Sucaad halka hore waan ka siiyay waan ku soo noqon doonaa dhexdii hore xagga dambe ku noqonaya hablaha gacanta taagaya waxaa jirtay si fiican baan u dhageysanay dooda dhinac kasta ha ka socoto halkay isugu timid waxay ahayd in la sameeyo wadahadalkaasna loo sameeyo saaxiibayaan haddaba su-aashaydii waxa weeyaan haddaan u badannahay maanta dhalinyartii waddanka berina mustaqbalkeedii ahaa su-aasha waan wadaa si aanan ubadkayga soo socda aanan ugu soo lugaynin meeshan sidee baa saaxiib iyo loo samaysanaya waddankana wuu sii soconaya yaad weydiinaysaa dhammaantood ciddii iga jawaabaysaaba oo mahadsantahay aad u mahadsantahay way ninkaasa ku noqonaya dhexdan ku noqonaya dhex raaca dambe way koobinaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا هل سؤال بان قبا سؤال شأنا واحد ويدينا يا إن أجلس وزير محمود حاشي عبدي محمود حاشي وحن لي كل مركي وده هذا الله ضب العبمين صوماليا صومالنا قول سبيكر على حياة صوماليا نوحي دون السين صومالنا صومالوي بسعوديس صومالنا نوحي دون السين صومالوين كقاضو خيامة يعني تشريني حرف العيارية بان قباتها إيه خصو توا وانا القيام ده سؤال شانو يمنايا وزير كي دولستي هو ده الحين حدودها الصومال هو عر يرضل أنا جو وحن قبا إن الصومال يكون ستي قريب كم ده حدودهني وهو ده يعني قاطع ما تحمر لقى معمول قراء بعض تاع هذا بقى وحن دوني هذا ما دوش يكتو واحد القرامد المدوبي خلد بيت سميونه وحي كوري تيين صوماليا محوية هاي خلد كي قرامد المدوبي سمايسي سما حيت هاي حرفت إنك تالي كري ويدين إن الهرجيسة كيان حمر لكن لقي أود ما هتسنتي سؤال شو إذا ما هتسن مدحنا وأنا إذا كسر علين دونا هالمر يسوع سؤال الكوينا دافين مدحنا سؤال جوابتين كوبان سيار هالمر يقول عليه يجنا إنما ده أدو ما هتسنتي وعنكبل أبي دونا إن سؤال شيء ننتا أيان كبل أبي دونا مركا حرسي وديب هذا سو كوبية waxaan isku darayaa su-aasha inanta iyo arrin aan arkayay ay ku si aad moodo in loo dhigay yeedha ah Sucaad iyo Maxamed ninka la yiraahdo DG-ga hore wasaaradda cayaaraha marka oo ahayd qodobku waxa ay tilmaameen shirka la tegay ee London conference maxaa lagu tegay saasaan filayaa su-aashu وسعادنا بموديني تري شركة صومالي وسعودي نقلينو متشين وحنو كوتاقني ودولة دي حلي قاعد شوكتي السيرانيو يعني كمد هاي وتكتي قرال عادو انفتيشنا الله صدري وآها إن صومالي لان يدو صومالي لانا وكاقارا صوماليا ويكو قرنتا هاي not signatory in the roadmap of the Garowe وحميش اللي قاقوا ذا هذا يه Garowe roadmap Somaliland كمان معها signatory صحيحياشة كمان مدها ظهر عض أو وراء ذا القرية مدحتوية ذا تعلو وأن كجتجي أيام لقوا تجي هرت ميش اللي هذا شركة لندن بس يمكن كجتشرو أنا صار نقد أنت سيدا واحد تري سيدا باي أي نكو كسبان كرا صاحبه أي نكو كسبان كرا دال أي نصمينه ودوني ذا إسكت عدينه إيوه إنه إنترسكا أما ريسورسكا يعني خيرات كان رادي خيرات كن إنه وجوية الدولة ده دناينا يا سي أي نقطة إنه ضد دنا إنه دحمران فربدن يدولة ده وين صاحب إنه يالنو إنه مركز لبعض أما مركز صدحات غضب كإنه كهاد لينو إنه لا شاعنا إنه حسوق دعي وين إنه الدنيا ده كيب الناس دي روان دي بوجي بيسي إنه قام مدايسن وان لقبا بروفيسور سماتري أبيان عبتين كادات كعبانية أما سبب إنه إن مركي هو inclusion سمين أما
yacni wax loo dhan yahay taariikhda hadalkayga horena way ku jirtay taariikh halgan iyo mid dhibaato loo dhan yahay oo aynu wada iibino inaynaan markii horena si wacan u gelin iminkana weli loo baahan aad waa maastan maxamuud baan siin doonaa maxamuud xaashi su-aashii ahayd arrinta dowladda kusoo noqon marka bismillah waxaan isleeyahay arrintaa waan hadalkaygii aan ku noqday dambe way ku jirtay qaramada midoobey waan saxayaa waxay inagaga hiilisay ama khaladkay gashay waxa weeye hawadii laga maamulayay nairobi oo walba dan la biday iyo bedqab oo muqdisho nabad ahayn awalba laga raray ayay ku soo celiyeen laakiin hawo ay maanta soomaaliya ay maamusho hawada upper spaceka sare ma jirto waxaynu wada maamulaa approach waxa la yidhaha ama lower airspace waa take off landing diyaaradoo kacda intaaynu inaguba inamadeennu maamulaan iyayana maamulaan arrintaa qaramada midoobay go-aankiisa waxaa ku xusan dalkii soomaaliya la odhan jiray marka dowladu wada maamushaa territorigiisa ay timaado baa hawada lagu wareejinaya dagaal baa weli inoo dhexeeya labadeenna inaan lagu wareejin si rasmiya mana capacityna uma laha markaa waxa weeye xukuumaddii hore kulmiye iyo tamaanta jirta midna waxba mawduuca kama hakaran ilaa cidyahaanu ku dagaalanay qaramada midoobay baanu diyaaradoodii joognay waanu dagaalanay qoraallo badan baa dhacay ilaa maantana weli waxay ku joogtaa iyagoon capacity u lahayn inay maamulaan iyo dee aragtidaynu kaga duwannahay labadaas ku joogta waa mahadsan